بسم الله الرحمن الرحيم. هيه قبيغان waxaan ugu talagalay oo aan u sameeyay shirkadda Hormuud la dhaho oo dhibaato fara badan bulshadan jubooyinka ku haysa markaan arkay wax saami ah oo ay ummadda jubooyinka siinayso wax ka qaada mooyee aysan jirin markaan arkay yaa waxaan kalifay inaan kaliya anoo ummadda jubooyinka matalaya aan u dagaalamo waxaan iri gobaygii ugu horeeyay iyo gada jubooyinka waa labada jubooyinka waa isku wad mid waxaan iri oo aan ka bilaabay gobay hadii Ilaahay ku soo ogol yahay xaalay ah waxaan iri Hormuud ay xishood iyo xushmad iyo qadarin iyo laga waa xaq dhowro xilli nool dadka anaga adaa xamaga haysto xinjirtooda nuuge dadka taa u xaganeed u xayuubsanaysa xuquuq aadan siineen goortaan xusuustaba qalbiga ay xanuuno xawle labisidiisu madaxaygu xiima xuraabaf yahay baas adu xuubsan mooyee xoolo celin ma lihido dadweynaha xagoodaba way ka xanuunsani maba xeerinay sida xirfadaadii dhaqanka iyo xeeladaadii baranay dudubliya xawaadliya xamar iyo hawiyi iyo dirkaad xeerisaayo xagga habar dugaagaad geysaa xuquuqa daarood xaqiisana xurguf aad u weyn iyo xarash baad u haysaa xoolahaad ka dhurataa xuquuqdaad u diidaa xitaa abwaanadu xushmad kuguma haystaan ilaa iyo xagaa hore dadkan xamaga siidaa ku xabeebtay aniguna xudxudo iyo abwaan xiinka naga daanima idinka xiriyo xakameeyni mihi dadweynaha xaqoodii ka xisaabtamo dhiga xoog adaa ku haysto dadka nagaad saxoolo iyo xayawaan ku tirisay saawaad xabaasheen xoog adaa ku haysto xagga naga shirkado kale adiga ka xiray oo ka xaribay dhamaantood shirkad xaasida tahay kuwaad adigu xulatay xigtada aanu nahay ee ku xamaala adiga ku fadhiya xafiisyadu dhiig iyo xinjira male xumaatada dadkoodana ka xanuunsan maayaan kaasi waa gobayga xaalayda ahaa mid kale oo marka ay shirkadda Samtel la dhaho ay timid yaan waxaan sameeyay waan ku farxay Hormuud dhibaatada ay ku heshay maadaama ummadda ay u dan tahay laba shirkadood oo tartamaya ayaa waxaan islahaa tana lagu kaban doonaa tiina xoog adaa ku haysto xagga naga shirkada kale adiga ka xidhay oo waxaan ku keenay weeye waa iska xidhay waxaan iri saadaasha guudiyo saansaan markaan day waa saban barwaaqo sagootiga Hormuud iyo soo dhaweey Samtel buu sanadkani wataayo dadku soo u jecel yahay ma suurayn karaayo Ilaahay ha nagu sib saas markii aan leeyahay Samtel iyo Hormuud ay nooma kala sukaysan waxa weeye midna waxa laga leeyahay beledweynaha xaga midna Hargeysa laga leeyahay Samtel iyo Hormuud ay nooma kala sukaysan shirkaddan Samaan iyo Saaciida iyo Khayr iyo Samafal laga heli ama sida Hormuudaas saamigii dadka anaga reerahooda siisan oo qabyaalad suno hoos qajana wadata socon maysa sida hore ha ku seexanina saas inta aan ku simo on saa ararta kaga tago oo aan si gooni Hormuud saynta ugu dhago 8 sano dadka anaga adiga siriya caad u sabab ruumanayo waa sabool dadkaygii uu saxaba maran ee inta saamigaanagi siinaysa duduble xawaadle aad ku saacidi ee wixii ka soo hara hawiye Soomaaliya dirka alla si mari soomati sagaaray saxara aan qarsoomay saartay sigada shirkadii aan nala simi Soomaalidaas kale ama sida Hormuudaas dadka naga